wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cali Cabdi Saayid ayaa maanta xariga ka jiray mashruuc dhinaca leerka oo leerka lagu gaarsiiyay airportka magaalada Berbera oo 12 kiiloomitir ka fog magaalada Berbera iyo qaybo ka mid ah bariga magaalada Berbera waxaana leerkaasi u saaray inuu gaadho qaybaha bariga magaalada wakaaladda xoogga korontada ee gobolka Saaxil munaasabadda xarig jarkana waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil iyo kan heer degmo maareeyaha dekada Berbera iyo maareeyaha wakaaladda leerka ee gobolka Saaxil iyo marti sharaf kale maareeyaha wakaaladda xoogga korontada ee gobolka Saaxil Cabdullaahi Ducaale Ajab oo ugu horeyntii ka warbixiyay mashruucan cusub ee leerka ay ku gaarsiiyeen qaybo ka mid ah magaalada waxaynu halkan isugu nimi maanta waa xafladaas oo furitaanka laynka leerka ee taga airportka haddaan dib ugu yaro noqdo laynka waxa la bilaabay sanadkii hore waxaanu dhamaaday sanadkan bishii July laynkaas waxa weeyaan waa 12 kiiloomitir 3 kiiloomitir oo kamid ah wakaaladda ayaa sameysay inkastoo xarigana laga caawiyay wixii kale ayaanu qabanay 8 kiiloomitirna waxa hirgelisay NGO la yiraahdo Adam Smith International waxaana fangareeyay dawladda Ingiriiska annagu markaa waxaanu ku darnay line kale oo xaggan qabta xaafadda Finland loo yaqaano hay ah annagu ka faa'iideysanayna line-ka hayga ah ee tagay airportka ayaanu annaguna 1 kiiloomitir ayaanu dhinaca u qaadnay markaasaan xaafadda la yiraahdo Finland ayaanu ku dabaynay waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo maareeyaha dekada Berbera injineer Cali Xoor oo dhamaantood si wada jir ah u amaanay wakaaladda xoogga korontada ee gobolka Saaxil inay wax qabad horumar leh ku tallaabsatay maanta waxa farxad weyn noo ah iyadoo nala joogo wasiir ku-xigeenkii hawlaha guud Cali iyo maamulkii gobolka heer degmiye heer gobol baan leenahay inaan maanta xariga ka jarno mashruucan oo ah mashruuc aad iyo aad u muhiim ah oo warshada airport leerka la geeyay waa 12 kiiloomitir waxa weeyaan waa project aad u weyn taasuna may suurta gasheen haddana xukuumaddu aanay warshada leerka tayaynin oo aanay keenin 3 jiin oo markula la wada keenay oo $1 milyan loo joogay runtii taas waxa ay ku fargaraysay in meel kasta ay jiinadaas ay geyn karaan leerka waxaan maanta aad ugu faraxsanahay dhamaystirka laynka haytiishinka ee warshada ama wakaaladda xoogga korontada ee Berberi ay ka shido maanta magaalada gudaheeda madaarkii caasimadda Berbera ee gobolka Saaxil oo runtii ah wax aad u qiimo badan in warshadii leerku ay madaarkii Berbera ay halka ka shido iyadoo awood ay u leedahay warshada leerka ee Berbera inay shido haamaha inay shido dekada inay shido gabahaanba baahida dadweynaha ee degmada runtii power supply la jeexo wadanka imika muddo dheer waxa ugu horeeya line-ka tagaya airportka Berbera dadku waxay u haystaan korontada iyo shaqadeeda wax fudud bay u haystaan oo aan macno badan lahayn ama aan hawl badan lahayn ama waa yar meel la mariyo waxaan idin sheegayaa ibnaadku hore uma marin ilaa uu korontada helay korontada markuu helay ayay Yurub iyo Mareykan ka horumareen dadka intiisii kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cali Cabdi Saayid ayaa isna sheegay inuu mashruucan yahay mashruucyadii ay ballan qaaday xisbiga kulmiye waqtigii uu ku guda jiray ololaha doorashada madaxtinimo mashruucan aynu furayno maalinba meel baa la furaa maalinba waxba la qabtaa waa qayb ka mid ah ballan qaadyadii markaanu xisbiga kulmiye halganka ku jiray aan ummadda u ballan qaadnay ayaa waxaanu qornay boog green ah oo aanu 1 iyo 2 ka bilownay waxaanu ummadda u ballan qaadnay wixii aanu qabanay halkan ka sheegaya waxaan u ballan qaadnay ummadda markii xukunka aanu qabanno inaanu furi doono ururada waanu furo marxaatida laga yahay waxaan ummadda u ballan qaadnay in tacliinta free laga dhigo waanu ballan qaadno way fushay waxaanu ballan qaadnay in mushaharka shaqaalaha 100% lagu daro way fushay
mashruuca leerka lagu gaarsiiyey qaybo ka mid ah magaalada berbera ayaa noqonaya mashruucii ugu ballaadhnaa ee wakaalada xoogga korontada gobolka saaxil ay ka hirgeliso gobolka. geesta kalena markab ay leedahay shirkadda caalamiga ah ee ka ganacsata koontiinarada ee Mediterranean Sea Company oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan MCS ayaa shalay garigii dambe ku soo xidhay dekedda caalamiga ah ee Berbera Port. markabkan oo sida badeecado kala duwan ayaa waxa ka warbixiyay Jaamac Ibrahim Faisal wakiilka shirkadda Mediterranean Sea Company ee Somaliland isagoo sheegay inuu markabkan qayb ka noqon doono horumarada kala duwan ee lagu wado dekedda weyn ee magaalada Berbera. madaxa dekedda u qaabilsan dhanka soo xidhista markabyada kala duwan ee ku soo xidha dekedda magaalada Berbera ahna madaxa qaybta faraca dekedda Berbera Aadan Xuseen Cilmi ayaa sheegay inuu markabkan yahay kii afraad ee noociisan oo kale ah ee ku soo xidha dekedda ayna rajaynayaan inay ku soo xidhan doonaan maraakiibyo kala duwan oo dhawaan la filayo inay ku soo xidhaan. markabka container ship oo markii ugu horeysay inuu ugu yimaado Somaliland waxaan ogsoonahay saddex markab oo ka horeeyay inay jiraan kanna uu kii afraad yahay. waxaan si wanaagsan uga shaqayn doonaa sidii aynu ula shaqayn jirnay kuwa hore dekedeenu muddo inay containers isu bedelayso. waxaasna sidoo kale halkaasi ka hadlay kabtanka waday markabkani isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay markii ugu horeysay uu Somaliland dekedeeda ka soo dego. markabkan shalay garigii dambe ku soo xidhay dekedda Berbera ayaa qayb ka ah markabyo kala duwan oo muddooyinkii u dambeeyay ku soo xidhanayay dekedda Berbera. Khalid Xasan Nuur, telefishinka caalamiga ee Royal Berbera.